ugu faraxsanahay xafladan oo ay ugu tala gasheen oo ay digteen oo ay keenteen oo ay soo qaadeen baabuur in ay keentaan oo halkaan ay keenteen iyo quruxda badan si aad igu muujiseen kalmashowe mar kale ay ku matasho kursiga hoob 266 ayagona baaq u diray shakhsiyaad ay sheegeen in kursiga hoob 266 ay la rabaan qof rag ah balse kursiga matalaadiisu uu yahay mid haween. waxaan aad iyo aad cabasho ugu qabnaa kursiga noociisa uu yahay hoob 266 oo ay leedahay beelweynta Qalmashowe. waxaa jiro dad isku dayaya dhac mise boob mise xaq qof uu leeyahay qof kale siinayo. dhammaan guddiyada doorashooyinka gaar ahaana guddiga banaadiriga guddoomisada u fadhiso Saadiya Boolay waxaan halkan kaaga cadeynayaa mise kaaga sheegayaa kursiga hoob 266 in uu leeyahay beelweynta Qalmashowe. waxaa jiro in qof beeshaada ka mid ah kursiga aad u balmarayso mise asiga aad la rabto. Saadiya Boolay si u fadhiso banaadiriga inay kursiga ay siinayso beesheeda kursigani hoob 266 waxaan ku qaadanay qoonto dumar ah marna ma ogolaan karno. waxa meesha isugu yimid waa dhalinyaro boqolaalo waa habeen boqolaalo waxaa loo yimid odayaal boqolaalo war cid laga soo tagay ma jirto. waxa loo yimid waa biibi qaliil waa in xilkooda loo daayaa mudane ra'iisul wasaare warka adigaan ku haaya war ciddi aragta ha u sii gudbiso ra'iisul wasaaraha xogkeeda sidoo ku maqlo. annaga waxaan nahay reer Qalmashowe kursigana annagaa iskale kursiga mudane ra'iisul wasaare adigoo mahadsan waxaan kaa codsanaynaa kursigayna inaad noo badbaadisid. adiga noo badbaadi allah noo badbaadiye kursigayna waa ugu dhagan yahay kursigayna. wasaarahan waxaan leenahay kursiga hoob 266 beelweynta Qalmashowe ayaa si gaar ah u leh ayagoon baana u tartami karna inay faragelinin ayaan filayaa dhammaan guddiga doorashooyinka haddii ahaan lahaayeen iyo hadduu ahaan lahaayeen xafiiska wasaaraha insha allah. in dood la geliyey kursiga beesha Qalmashowe ku leedahay golaha shacabka oo ay ku hayaan guddiga doorashooyinka u fadhisa Saadiya Awees Cali Boolay. marka waxaan codsanayaa ra'iisul wasaaraheena Maxamed Xuseen Rooble waxaan ka codsanayaa inuu xaq sooro oo kursiga hoob 266 fiiro gaar la yeesho. xildhibaan biibi khaliif dirqi laguma soo galin anaga ku dooranay qof diyaarsan baatay weliga dalka bilay calankana dushaadhi. annaga waxaan diyaar u nahay kursigayna inaan annaga u tartanno qabiil kale ma imaan karo mana ka ogolaanayno mana ka ogolaan doono. waxaan meeshaan ka cadeeynaa maanta wixii ka dambeeyo annaka beesha Qalmashowe hadii nahay hiil iyo hoob waxaan garab taaganahay walaashayna biibi Maxamed Awees Cade. kabacdi waxaan kaloo meeshaan ka cadeynaa dadka oo guddiga banaadiriga oo u fadhiyo macnaha xafiiska doorashooyinka waxaan u sheegaynaa in macnaha waxyaalka barkooda oo meesha ay ku hayaan in ay ilaaliyaan. maxaa jira meesha ba loo goynay in dad u dhacaan. meesha waxaa loo gooyay in dadka nin walba haqiisi inay meesha ay ka maamulaan loo geeyay in dad dhacaan loo geeyay. waxaan u sheegaynaa gabadhaas oo meesha fadhiso oo ay rabto inay kursigan ay u dhacdo beesheeda iyo saygeeda inay u dhacdo yartaa meesha rabtaa ninka yeelayna male. kursigan waxaa leh beelweynta Qalmashowe leh haddana beelweynta Qalmashowe leen u tartamayso nin alla ninkii beelweynta Qalmashowe ka dhisa waa inuu u tartamaa. aad ugu faraxsanahay xafladan oo ay ugu tala gasheen oo ay digteen oo ay keenteen oo ay soo qaadeen baabuur in ay keentaan oo halkaan ay keenteen iyo quruxda badan si aad igu muujiseen taageeradiina aad igu muujiseen qiira ay gashay inaan dad leeyahay
khaasatan gabdhaha beeshayda maanta waxaan ku faraxsanahay inta bannaanka joogta iyo inta joogto wallaahi billaahi waxaad ii muujisaan kalgaceel I love you all of you